السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا صاحب بيال عاوية بديدي قدامبية أما قد بدل مركا وحي ساعة بدن يبروجرام كينان أو أهربينا كسوقاته وحالة هذا فراك بحري كتاجن قبل كي سنة أما دجال قول دحية مركا بيشي هبر يونس يبيشي ورسنجلي إيو شركة نبضين تا كسعودي مركا مقالدي غير جابو اللي سوي مني ماملكي سومالان يودياشودي iyo Suldaan Siciid iyo odayaasha kale ee marka horgalada ah ee uu horkacayay oo reer Somaliland ay marka ugu yeedheen inay yihiin kuwa iyagu nabadda marka baryaya go'yaal cadcadna wata arrinkaas waxgaradka iyo isimada ka soo jeeda beeshii warsangali khaasatan degmada Xingarool galihanba iyagu marka ay caawideen kuna sheegeen nabadda la dhoobayo ee magaalada Ceelgaba marka laga wado inaysan ahayn mid suuragali karta ama la qaadanayo ama soconaysa sababta ay marka uga soo horjeesteen shaha nabadaynta ama shirka la isugu imanayay ee marka ka socday magaalada Ceelgabo dagaalka dhacay hawsha taagan iyo xaaladda hadda marka maanta ka taagan gobolkii Sanaag magaalada Ceelgabo ama hawsha marka dhex taalo waa beeshii warsangali iyo beeshii Habriyoonis ama Somaliland iyo beeshii warsangali iyo arrinka uu marka Suldaanku horkacayay iyo odayaasha marka kula socda waxaan beritoole gobolka Sanaag ku soo dhaweyn doonaa Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaam iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro waxaan idin leenahay soo dhawaada daba waxa sababay in xaaladdu intaan oo dhan markaas gediso beeshii warsangalna go'aan toos ay marka ka qaadato ayaa aynu rabnaa inaynu isla aragno iyo wararkan degdeg ah hadda ka soo dhacay odayaasha ama isimada ama waxgaradka degmada Xingarool ee beeshii warsangali ila feeri Ceelgaba nabad kama jirto سياسي كوي ذاتك بيرها يقبض روحي يقبض ولي هاي ستة ولي بحكم هاي ستة وضد بدن وحكا قاعدة بقى هدانا عارفين مثلا أهي الصبح بحية Ceelgabana ma jirto iyaguna waa ogyihiin dadkan kale waa ogyahay waa dagaalka markaa shidanka dhacay ee iskaga hor yimaadeen nimankii Nuux Cumar iyo beeshii idna Habriyoonis dagaalkaas gabi ahaanba waxa uu fashiliyay oo uu booska ka saaray ama uu gabi ahaanba meeshii ka bixiyay waa shirkii nabadaynta ee magaalada Ceelgaba ka socday oo odayaal markaa iyagu Suldaankii horkacayo oo ka soo jeeda beeshii warsangali iyo reer Somaliland iyo dawladda Somaliland ba arrinkii ay wadeen waliba Puntland ay markaa ku garab taagneed oo hawshan la rabay hawl markaa mira dhalaysa in laga dhigo dagaalka daba dhacay waxa cad gabi ahaanba hawshii taagneed ama wajigii wax loo arkayay ama sidii ay wax u socdeen inuu bedelay oo waji kale oo cusub oo markaa inoo bilaabmay waa hagaag sidee toban gobol bay ahayd Soomaaliya gobol walba dad buu leeyahay meel bayna ku ismeeyeen ayaga hadda arintoodu waxay noqotay inay marba duciyaan waa nimanka horgalada warsangali iyo hawsha markaa hadda haysata oo arrinkoodu uu markaa kuba soo gabgaboobay inay markaa marba dhinac u yaacaan ama ay marba ducu yaacaan taasna hadda waxa halkan inooga cad gabi ahaanba dadkii deegaamada ka soo jeeday ama beeshii warsangali iyo shicibkoodii iyo waxgaradkoodii ama isimadoodii intooda badanba inaysan arrinka raalliba ka ahayn waa hagaag odayaashooda iyo waxooda marba ay dhan isugu yaacaan eelkadeeda intaas waa qabo waa iska soo dhamaanaysaa runtayna tegaysaa dadkana cid bay yihiin ka soo cusboonaatay gobolka Sanaag Ceelgabo oo ah warsangali iyo galweyn baa lagu heshiisiinaya anagoo odayaashii Xingarool waxaa leeyahay waxba kama jiraan odayaasha warsangali oo meesha yaacayana nabadna ma hayaan lacag u bixi ka doonaya xogaagooda markay qaatana waa cararayaan ya alla yaqaan ama odayaal ama waxgarad ama beeshii warsangali meel walba oo deegaamadooda marka ay ka soo hadlaan waxa ay cadeynayaan odayaasha marka magaaladii Ceelgaba jooga danta kaliya ay meesha u aadeen in ay tahay mid ay iyagu marka lacag ku raadsanayaan balse dan warsangali oo ay meesha u aadeen gabi ahaanba inaysan jirin dagaalka dhacay kaasna wuxuu meesha kala saaray wax heshiis marka ah oo la isugu imanayaa inaysan jirin ama heshiiska marka hadda laga wado magaaladii Ceelgabo inuu yahay wax aysan marka cidna raalli ka ahayn oo la dhoodhoobayo waxa kaloo ay hadalka inoogu dareen waliba inay iyagu daal ku haysta reer Somaliland intii marka dawladda Somaliland deegaanka ay gacanta ku haysay inay ku tacadisay oo dhul waliba beero iyo daaqsimaad ah intaba beeshii warsangali dawladda Somaliland marka ay ka farabaroojisay taasi marka masuuro gelinaysa in nabad la isugu yimaado dabcan maya شida lagu duulay marka waxa uu leenahay hadaatiin Cabdi Xaamud ama Maxamed Xaamud ama Cabdilla Xaamud marka uu sagariyo beesha uga dhibita ka sii deynay hada ana xubtaan shidana faraha kala baxa
marka nimankaasi intay lacag odayaashii xiingalool oo waxa ay taagan yihiin buwarni oo nimanka warsangeli ee magaaladii ceerigaaba imaaday waa raggii ka dambeeyey dilkii markaa caaqil cumar looba geystay oo shaki kuma jiro marka haddaad aana u baahan tihiin ama dad aad qabsataan dee ayaga ayaa idinku dhowba ee qabsada ama u dila yacni warku waa cad yahay iyo go-aanka beeshii warsangeli oo dee markaa aan indhaha laga qarsan karin xogaagayni ka soo qaaday hadhow waa kala yaacayaan adeer nabadda hartiba hayeen kuna istiqbaatihiin haddaan gogosha la dhigin goof iyo fuqufil iyo dhexdeeda waxa la wax nabadda ka jira ma jiraan yaalin waani odayaasha warsangeli oo ka tegaya barana waxaan idhi ciidda ma bedeshaan waxaad yeelaysaan guryihiina inta dee ku qasan ku qubaysanayo orday guryihiina daahilsada yacni jawaabtu waa ay caddahay nabadda ceerigaaba taalla midda warsangeli go-aankeeda uu keligii goyn kara ma ahan ayaa ay taagaynaa mid warsangeli go-aankeeda uu keligii gaari kara ma ahan nabadda iyo heshiiska iyo wixii lagu wada hadlayaaba waa mid u dhaxaysa beeshii harti iyo beeshii reer somaliland isaaq intaa wixii ka baxsan dee qabiilo gooniya nabadeeda ma gaari karaan oo go-aanna kama qaadan karaan hadalkaas waxa uu ka soo baxayaa waa beeshii warsangeli odayaashoodii oo weliba hadda caawa hadalkan hadda dhegeysana waa mid ka yimid xiingalool balse meel walba waa uu ka yimid hadalkaas oo waa mid ay warsangeli oo dhan markaa isku raacsan yihiin ama mowqifkooda uu markaa cad yahay madaxweynihii somaliland cabdiraxmaan ciro go-aankiisii ama heshiisiintii markaa uu waday oo suldaan siciidii ay la wadeen arrinkaas xaggee ayuu ku dambayn doonaa ayaa ay su-aasha marka ka taagan tahay ilaa waa aynu u jeednaa majoritiga ama badankoodii warsangeli go-aankoodu waa mid oo hartinimo ayaa ay taagan yihiin wax kaloo intaa ka hooseeya haba yaraatee ma jirto ee inagu kala wada ayaa ay go-aankoodu yahay waa hagaag dad baa golka biyaha u soo galaya marka waxaan ku gunaanadayaa nimankan fadhiya meesha la yidhaahdo ceergaabo warsangeli oo iyaga guriga lagu ilaalinayo maxaabiista shidana rasaasu ka socoto iska soo qaado gaari ku soo gura oo ciidankoodasharafinimada usoo fadhiisanay maanta hawlo ka jira gobolka sanaag deegaanka arrimo ka socda ceergaabo nabadayn laga wado oo maalmahan baanu maqlaynay waxyaabihii ka dhacayna dadku dee hadda iska wada socdaan iska wada joogaa dilowgaa odayaashii meesha tegey yacni waxa ay taagan yihiin buwarnimo yahow nimankan iyadoo deegaanadii warsangeli ama shidal ay dagaal uu ka taagan yahay oo niman nuux cumar iyo niman kasoo jeeda beeshii habaryonis xabadi ay ka dhex dhacayso oo dagaal taagan yahay horgallada markaa ceerigaabo laguba waardiyeynayo oo beeshii habaryonis laga ilaalinayo inay dilaan dee taasi nabad maahan ama nimanka dilo oo laaya ama kaxaysta oo maxaabiis ka dhigta dee ama gaari soo saaro oo lacagta idinku yimaadeenna soo siiyo soo fasaxa yacni waa xaaladda gobolkii sanaag uu markaa caawa ku sugan yahay waana xaqiiqda dhabta ah ee markaa taalla xaaladdu faraha waa ka baxday sida cadda aynu markaa u jeedno soconayay in macnaha guryo ay ku xidhan yihiin maalinba habeenba guri ay seexdaan gaara nabadna noo dooneen marka annagu nabadda loola diidayno nabaddu waa wanaagsan tahay laakiin waxaa nooga muuqan weyday beesha kale oo deriska nala ah oo ceergaabooda diganahay oo dirutuna dhex martay inaanay ahayn dad nabad raba daliilna waxa u ah shala ugu dambaysay ciidamada maxaa ugu dambeeyey kaala siisay oo shala ugu dambaysay dhulkayga bay weerar ku yihiin oo dhul baa dadka la daba dhigay wuxuu dhahay waa dad markaa dhul la daba dhigay iyo meel ay boobaan ama dhul ay xoog ku qaataan nin markaa shalay ugu dambaysaba deegaamadeedii soo weeraray oo raba meel uu xoog ku qabsado oo dagaal naga dhexeeyo dee nabadi markaa mana dhex imaan karto odayaasha marka howlgallada ay beeshii warsangeli iyo ceerigaaba joogana dee habeenba guri baa lagu qariyaa oo laga ilaaliyaa dadkan markaa iyagu reer somaliland inay dilaan oo ay qoryo usu qaataan waa niman iyaga markaa naftoodii la ilaalinayo kuwaasi nabad miyay keeni karaan maya iyadana waa uu sheego waxau dhahay nabaddu waa wax ugu wanaagsan oo dadkuna ay ku wada noolaan karaan annaguna ma diidanin balse wax cad iyo wax toosa markaa ha la isugu yimaado oo ha lagu wada heshiiyo balse heshiiskan ama shirkan nabadeed ee albaabka gadaashiisa lagu gelayo iyo odayaal aan iyagu deegaankii iyo dadkiiba matalin islamarkaana deegaanka laftigiisiba xabadee ka socoto oo weerar uu ka imanaya dhankii somaliland ee meesha wax la isugu yimaado ama lagu wada heshiiya ma jirto inta dhulka ay sheeganayaan nabadi ka dhici mayso baan soo jeedinayna odayaasha si gaara waxaan u leeyahay odayaasha waxaanu kula hadlaynaa afar kelmadood oo sugaana haddii de alla ku duwayo waxaan leenahay kuwii alla ku duwa allah ka dhigo sharafay dhimatay nimankii warsangeli ahaa odayaashoodii baa inkaari ku dhacday weliba kuwii ayagu markaa ugu dhadhawaa ee suldaanka ka ag dhawaa ee suldaanka
ee suldaanka markaa ku xirnaa oo howlgalnimo iyo lacag raadis iyo iimaan darro meel walba markaa uga dhacaya waana ceebta iyo fashilka maanta haysata oo magaaladii ceerigaaba habeenba laleeyahay guri baa lagu ilaalinayaa oo laga ilaalinayaa markaa dadkii xanaaqsanaa ee reer somaliland inay odayaashan laftigooda badilaan xaaladda halkaasay maraysaa beeshii warsangelina go-aankoodu waa cod yahay odayaasha markaa ceerigaaba joogana waxay taagan yihiinba waa horgallo oo dee cidna ma matalaan waa hagaag videogan halkaasaan kusoo gabagabaynaa intaan isugu imaanno videogan ugu xiga iyo wixii update ee soo kordha insha allah waxaa idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu